waxaan idinkaga mahad celinayaa gogosha aad Soomaali u fidisaan iyadoo ay ahayd in qaranku fidiyo gogoshan sababtoo qofka dhintay waxa uu ahaa qof qaran dawladnimadana muhiimadda iyo ahmiyadda ugu weyn ay leedahay waxa ay tahay in dadka qarannimada Soomaaliyeed u soo dhintay u soo dadaalay astaan u ah oo caruurtooda iyo waalidkood ay la qaybsadeen dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u adeegaan waxa ugu horeeyo la iska rabo waxay tahay in loo abaalgudka ugu horeeyana waxa uu yahay in la muujiyo sida qaranku uga xanuunsanayo marka hore waxaan rabaa inaan qoyskii uu General Gaal ka baxay dhammaantood aan uga tacsiyeeyo geeridii naxdinta leedo ku timid waxaan leeyahay Ilaahay samir idinka siiyo waxa kale ugu mahad celinayaa kuwa halkan nala fadhiyay kuwa aan jooginba meel walba ay joogaan sanadihii tirada badnaay ee ummadda Soomaaliyeed la qaybsadeen inuu dadku u adeegayo dalka waxa kale oo marxaati ka kacaya inuu qayb ka yahay taariikhda Soomaaliyeed dadaal badan oo dawladnimada ku bixiyay ilaa haddana isagoo da'ah uu waday Ilaahay jannada ha ka waraabiyo qabrigan Allah u waasiyo intuu ka tagana Ilaahay ha u dhib yareeyo idinkana waxaan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad u agaasimteen aniga habeenkii dhacdadu dhacday ayaan gurigaan mid oo ahaa dadkii ugu soo horeeyay maantana waxaan ku faraxsanahay markii la khatimaayay waxaan rabaa inaan idin cadeeyo inaan xanuunka idin la dareemeyn dareenka qabtaan idin la qabno idin garab taaganahay ninka dhintay wuxuu ahaa nin qaran nin qabiil ma ahayn astaanu ahaa waxay ahayd inaan tusaale kulligan ku qaadano haddii aad dareenteen daldaloole inay yimaadeen meeshii lagu aadanaa aan idinkaga soo bixin waa idinka raali garaynayna dalku wuu jiri doonaa isaga naga weyn waqtigeedana waa la soo gaari doonaa waa mahadsantihiin